زمزما في كل ذل واغسل القلب الذي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu wada ognahay in xilliga aynu hurdada galayno ama aynu seexanayno in dadka qaarba nooc gaar ah ay u seexdaan, sida dadka qaarkood inay u seexdaan dhabarka, qaarkoodna dhinacyada, qaarkoodna u seexdaan beerka. waxa haddaba arrin caafimaadka qofka khatar ku ah lagu sheegay in loo seexdo beerka, waana arrin dad badan caado u ah in marka ay seexanayaan ay beerka u seexdaan iyadoo ay dhici karto inaanay ka warqabin khatartan la sheegay inay leedahay u seexashada beerku. waana arrin inta badan ay samaysay carruurtu inay beerka u seexato. haddaba dhibaatada la sheegay inay ka dhalan karto beerka oo qofku u seexdo waxaa ka mid ah inuu qofku ka qaadi karo qoor xanuun ama qoorta oo qofka xanuunta, isla markaana dhibaata ay soo gaari karta neerfayaasha halkaa mara. waxaa kaloo iyaduna ka mid ah inay arrintani sababi karta dhabar xanuun iyo dhibaato caafimaad darro oo soo gaadha dhabarka. waxaa kaloo hurdada noocani ay daciifisaa waxyeelana u geysataa murqaha caloosha. waxaa kaloo keenaysaa u seexashada beerku inay adkaato inuu qofku si fiican u neefsado xilliga uu hurdada ku jiro, maadaama laabta qofka uu saaran yahay culays badan xilliga uu hurdada ku jiro. waxaana xusid mudan in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday in loo seexdo beerka. ugu dambayntiina ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. wajazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.